taayirka nolosha ama wareegga nolosha. taayirka noloshu waa qaab loogu talagalay inuu qofku noloshiisa ku miisaamo si uu nolol degan oo horay u socoto ugu noolaado. qaabab badan ayaa loo qaybin karaa qaybaha nolosheena, waxaanse hadda soo qaadanaynaa 8 qaybood. 1. qaybta shaqada. 2. qaybta qoyska, sida qofka qoyskiisa ama qoyska uu ka dhashay. 3. qaybta bulshada, sida asxaabta, deriska, bulshaweynta. 4. qaybta jidhka, sida jidh dhisidda iyo caafimaadka. qaybta nafta, sida moraalka wanaagsan iyo moraalka xun. 6. qaybta caqliga, sida waxbarashada iyo dhismaha nafeed ee qofka. 7. qaybta iimaanka iyo xiriirka Alle. 8. qaybta dhaqaalaha, maxaa ku soo gala maxaase kaa baxa. qaybahaas aan soo sheegnay qayb kasta xaq ayay ku leedahay waqtigeena, dhaqaalaheena iyo dadaalkeena. dadku waa 2 qaybood. qaybta koobaad waa dad qorshe ka leh isu miisaamidda qaybaha noloshooda oo qayb kasta ka siiya qondo ku habboon waqtigiisa, dhaqaalihiisa iyo dadaalkiisa. dadkaas noloshoodu si wanaagsan ayay horay ugu wareegtaa, noloshana guulo la taaban karo ayay ka gaadhaan. qaybta labaad waa dad aan wax qorshe ah ka lahayn isu miisaamidda noloshooda. qaybaha nolosha qaar xoogga saara, qaybana aan dan ka gelin. aad ayuu u shaqeeyaa, laakiin jidhkiisa iyo caafimaadkiisa ma daneeyo. danta gaarka ah wuu ku dadaalaa, laakiin danta bulshada waxba kuma darsado. dadka noocan aha waxay u badan tahay inay noloshu dhexda kaga banjarto, wax la taaban karana uusan nolosha ka keenin. waxaa habboon qof kasta 1. inuu qorshe ka leeyahay isu miisaamidda qaybaha noloshiisa. 2. si joogto ah inuu u qiimeeyo una horumariyo qorshihiisa. fiiro gaar ah. haddii aad rabto inaad xog intan ka badan ka ogaato mowduucan, ka raadi magacyadan: luqadda Ingiriiska Wheel of Life, luqadda Carabiga Cajalatul Xayaa.